عليكم أصحابي كسر دواذا إن Somali Fashionista channel oo ah channel aan idinku talagalay inaan idin sameeyo video badan oo idin anfacaya siiba hablaha qurxinta jecel iyo daryeelka naftooda si natural ah videoyadaan idin sameeyo waa qaar wada original waa qaar cilmiyeysan waa qaar aan doonayo inaad ka faa'iideysataan oo waxyaabo badan oo suuqa waran ama ma aragtay la idin la imanayo ama videoyo aan idin khusaynin in ma aragtay aynu kaga feejignaano wixii damage gaarsiin karaya timiheena iyo nafteenaba waana videoyo fan ah oo doonayo inaad u aragtaan inaad waxaad rabtaan soo weydiin karaysaan at the same time na aan idinka soo jawaabayo su'aalihiina videoga caaw wuxuu ku saabsan yahay qurxinta timaha siiba waxaan rabaa inaan idinka jawaabo su'aalo badan oo igu soo noqnoqdo weydiisaan had iyo goor hablaha weydiiyo ku inta ugu muhiimsaneedan caaw xusuusto xagga maskaxdeeda guud ahaan wax waraaqo oo soo diyaariyo qoraal ma jirto marka waxaan isiri uga jawaab dhowr su'aalood oo muhiim ah su'aalahani waa qaar ragana khuseeya oo ayaguna ka faa'iideysan karayaan marka definitely su'aasha ugu horeysa ku bilaabina waxa weeyaan bismillah habla isoo weydiiyo ugu yiraahdaa madaxa mayonnaise ayaanu marsanaa wax isbedelana maanaan dareemin maxaad u malaynaysaa inay sababayaan timaha iyaga jajabkooda su'aashaasi waxa weeye wax jira in dad badan ay yiraahdaan mayonnaise madaxa la marsado mayonnaise timaha uu fiican yahay mayonnaise waana wax easy oo gurigeena yaala mayonnaise waa cunto waa wax yar oo badhar oo kala ah aynu marsano sandwichka ama ma aragtay roodhida ma aragtay marka aynu burger cunayno ama anything else roodhida la dhex mariya isagoo diyaar ay suuqyada yaala waa la soo iibsadaa saliid kala gaarana waa lagu sameeyaa qaar olive oil qaar heart health ay ku qoraan qaar ay yiraahdaan waa low fat mayonnaise qof walba gurigiisa talaagadiisa ku jira mayonnaise oo garanay mayonnaise ku wixii saladkeen ku darsanaa iyo waxyaabo kale oo badan mayonnaise-ka anu kama soo horjeedo sidiisaba waa cunto la cuno laakiin waxa weeye cuntooyinka aan caafimaadkoodu badnayn sidiisaba oo ah in la yaraysto ujeedada mayonnaise-ka loo marsado maaragtay roodhideeda cuntada lagu cunaayaba waxa weeyaan in like badhar oo kale oo yaro degdega la mariyo oo faad meedhana faadkaasi ama saliidaasi ama beedkaasi ku jira mayonnaise-ka waa wax timaha wax tari karaya hadday dee saxsan yihiin laakiin waxyaabahan uga soo horjeeda ayaan idin sheegayaa mayonnaise-ka timaha la marsanayo mayonnaise-ka sidiisa wax lagu daraa khalka pH level buu leeyahay kimika pH levelka la yiraahdo oo pH levelkaasi waa mid ka hooseeya muxuu ahaydeenay timaha iyo maqaarka qofka bini'aadmiga ah waana timahana damage ku gaarsiin karaya uu qalajin karaya uu jajabin karaya timihiina waana acidic too acidic way saliida lagu sameeyay iyo beedka lagu sameeyayba waa okay laakiin waa too acidic damage timaha sidaas u soo gaarsiin marka timahaagi haddii aad doonaysay markii horeba inay qoyaan ay qalaylka aad ka saartid oo ku qurux badnaadaan oo aad rabtay inay ma aragtay isku dhacaan oo ma aragtay caafimaadkooda uu soo noqdo haddii aad khal marisid waxay ku jiraan oonad ogeyn damage bay gaarsiinayaan haddii timahaagu markii horeba qalalna wax qoyaan ah iyo nafaqo ah ma u keenayo waxa kaloo ku jira mayonnaise-yada qaarkood beedka cadaankiisa oo isaguna aynu ognahay ma aragtay xabka cadi inuu ma aragtay qalayl ku keeno mararka qaar wajiga la marsado si looga saaro daldaloolada qashinka ku jira waxyaabaha noocaasa marka beedka cadaankiisu caafimaad ahaan uu fiican yahay in la cuno oo casaanka la yaraysto sometimes qofka cholesterolka ilaalinaya jirkiisa laakiinse qofka hadduu timihiisii ay jajabayaan qalalan yihiin beedka xabka cadi uma fiicna marka qalaylkiyuunbuu zaa'id kasii dhigayaa ujeedadiina waxba kaagama taraayo marka saliid yarayda mayonnaise ku jirta iyo beedkii casaankiisii ku jira wax kuu tari lahaa labadaba block ku samaynaya marka aniga xaggayga waa no maya ha marsanin mayonnaise-ka suuqa yaala ee guryaheena yaala aynu cunayno waxaa kaloo ku jira chemicals preservative wax walba oo cunto ah ama muxuu ahaydeenay loogu talagalay in ma aragtay talaagada laga soo saari karo haddii la furo banaanka ay ooli karayso oo dee cuntada lagu cunaayo waxaa lagu daraa kimikooyin kala duwan oo preservatives ah iyo qaar ma aragtay ka ilaalinaya bacteriada cuntada ku dhalato kuwaasina waa kuwa aanan jeclaynba in ma aragtay madaxaaga aad mariso maadaama rabtid inaad nafaqaysido dee daweysid si natural u daweysid marka mayonnaise-ku xaggayga waa no okay marka xaggaasaan ka baxayna su'aashaas mayonnaise madaxa ma marsan karaya because ma raadaan ahayn mayonnaise guriga aanad ku samaysanin
faa'iidadiisa khasaarihiisa ayaa ka badan markaa ka dibadda laga iibsanayo maya weeyaan inaga dhaaf haynaga maqnaado warkiisu waxaa kaloo su-aasha labaad haddii goor igu soo noqnoqotaa waxa weeyaan madaxa basal baa la marsadaa ayaan arkay video baan arkay basal madaxa la marsanayo basashu wax ma ii taraysaa maxaa iiga qaban karaysaa timahayga siiba hablaha maaragtay xijaabada xidha maasha allah maalintii oo dhan ku maqan dee ma garanaysaa hawl guri iyo ama shaqo ama hawl adduun waxa ay xijaabkay madaxa ku giijiyaan xagga hore siiba markaa timaha xagga hore ayaa khafiifa ama biin culus ayay timaha xagga dambe ku xidhaan xijaabkana ku giijiyaan timuhuna markaa ma neefsadaan muddo badan markaa heer damage kasoo gaadhay waxay igu yidhaahdaan basashaas inaan tijaabinaan dooninahay maxaad ka qabtaan milgoy wax ma noo tari karayaa basashu waxay ku tari karaysaa laakiinse waxyaabo kalena inaad ku dardarto weeyaan laakiin qofkii dadaalaya way anfacaysa waa inaad si joogtaa u isticmaasha basashu sulfur baa ku jira sulfurkaasina definitely hair losska wuu yaraynayaa ama wuu gaabinayaa hair losski ama timihii go-eeyay degdega u go-aayay haddii aad timahaaga usoo jeesato haddaad maalin walba feedho stimulation waxa la yidhahdaad samaynaysaa waad masaajeynaysaa basasha marka aad haddaad ridiqdo oo kale oo aad mashiinka ku ridiqdo oo 2 midho basala oo aad dhala ku shubato biyo yar ku darto oo distilled ah distilled-kana waan ka hadli doonaa waxa ay yihiin ama biyaha caadiga ahba laakiin distilled water baa lagu qaatay biyaha caadiga talaagada wanaad markaa gelinaysaa wixii waa cunto fresh oo khudrad fresh weeyaan marka madaxii haddaad ku buufisid meeshii timaha ay kaa go-ayeen oo kale waa inaad ku masaajis marka stimulation wax la yidhaahdaa dhacaya daldalooladii madaxa ayay sulfurkaasi caawinayaan marka isna aada baartay okay markaa basashooda isticmaali karaysa laakiin goorma wax kuu tarto markaad joogto isticmaashid aad meeshii ku shubtid waa marka aad madaxii leeydisid markaa timihii meeshii feedhid had iyo goor aad masaajaysid saliido good stimulation samaynaya sida long hair vita oil oo kale aad marisid timihii aad joogto u feedhid oo masarka aad ka khafiifisid nylonka aad joojisid oo aad masaro kotona xidhatid oo hawsha aad wadido haddii aad rablo ku samaynaysid rablada ka yaraysid galaan baa la yidhaahdaa hablaha koonfurta galaanka aad ka yaraysid timahaaga oo timahaaga kolba style different aad u samaysid dabcan timuhu way kuu hagaagayaan oo kuu baxayaan yes marka taas anigu waxba kama qabo waa fresh muxuu ahaydana talaagada ku rid si aanay bacteria ugu dhalanin joogto laakiin waa inaad u isticmaashaa waxa walba oo aad bilowdo waa inaad si joogto ah u isticmaashaa at least dhowr bilood si aad natiijo uga aragtid markaa tijaabi baan kugu odhan lahaa laakiin also isticmaal waxyaabo kale oo anfacaya madaxaaga si ma aragtay mar haddaad hawsha gelaysid si fiican aad u wada geshid ciddii su-aal ka qabta ama hair loss dhibaata ka haysato hayla soo xidhiidho fariin iigu dhaafa videogan hoostiisa su-aasha saddexaad ee igu soo noqnoqota had iyo goor iyadana waxa weeye mid lamida u dhow muxuu haydeenay basasha waa iyadana waxaan ka hadlaynaa waa toonta madax ma marin karayaa siiba inamada toonta madax ma marin karayaa meeshaasi hair loss baa igu dhacay hablaha qaarkood marka ay umulaan waxa ku dhaca waxa la yidhahdaa temporary alopecia oo meelaha qaarkood boog timuhu kasoo dhacaan waa temporary waxa weeye hormoonka ayaa sababa hormoneskeeda fluctuation jirkeedu wuu soo noqonaya marka taa laftarkeeda waxay u baahan tahay waxyaabo jirkeedii soo celinaya nafaqadiisii iyo caafimaadkiisii waa inay cunto nafaqa la cuntaa waa inay seexataa waa inay timihiina markaa ka shaqaysaa oo ay dee wada markaa toonta yes toonta way ku anfacaysaa haddii meelo gaar ah oo baagbaaga madaxaagu leeyahay oo timuhu kaa dhaceen ilaahay inaguma keene oo temporary alopecia ay tahay qofka permanent alopecia leh waa qofka timuhu ka wada guureen meelaha qaarkood ama timuhu chemicalka ka gubeen hablaha waan kala taliyaa koonfeerada timaha jilcisada u marinaya hablo timaha laga gubay madaxaaga haddii uu gubto maqaarkiisu oo qolofta madaxaaga gubato meeshaasi tima kama soo baxayaan marka be careful markaan idinku leeyahay chemical damage-ku maaha keliya muxuu ahaydana timaha keliya kuma dhacaan timuhu haddii ay gubtaan ama jajabaan dee madaxaagiiba ku nool madaxaagiina waa beertii timaha kasoo baxaayeen markaa way timo kale kuu soo baxaya ma noqonaysid qof dee timihii ka guureen laakiin haddii meeshaasi inankiina lagaga gubay baa la ii sheegay inan kaloo iyadana aroosada haydo iyadu lafteedkeeda ila soo xidhiidhay ugu tiri naag baa ii marisay jilciso ya
oo timihii iga gubtay meeshiina imika timaba kama soo baxayaan waan yaabana waxa sameeya ma garanayo iyadana mushkiladaas haysata marka madaxaaga mar walba waa inaad ka taxadirtaa waxyaabaha damage-ka khaaska ah keenaya waxa kaloo damage keeni karaya chemicalkan cusub ee hadda la soo saaray keratin treatment la yiraahdo ama Brazilian blowout ee timaha straight ka dhigay jilicsada ka duwan taa laftarkeeda damage-ka ugu badan ee hablaha ay madaxa ka soo gaarsiisa waa scalp damage garayso waa madaxa qolofta madaxa damage garayso waxa isbedelaya oo aan anigu arkay oo ku dhacday habla badan waxta Mareykanka la jooga scalp-koodii oo ma aragtay timihii texture-ki isbedeleen waa anigoo timaha jilicsan u dhashay oo timihii xitaa haddii aanay iga nabaad guurin meeshii timahaygii ay noqdeen curly aad iyo aad u adag waana run habla asxaabtaydu xitaa Facebook ku jira ayaa qaarkood sidaas ay ku dhacday waana nasiib darro qof doonayo qurux iyo wax wanaagsan maaragtay lacagtiisu ku spend gareeyo been looga sheegay oo ma aragtay isiri waxana ku anfacaya oo hadana ama timi ka holholmeen ama maaragtay scalp damage ka gaaray waa dhibaato aad u weyn waxa weeye tacadi aad u xoog marka waxaan leeyahay mar walba please be careful wax walba madaxaaga marsanaysid hadii waxaynu ku khamaarayna timahayna ku khamaarayna kuma khamaari karna marnaba scalp-kina ama qolofta madaxeena waa beerti ma aragtay de timaha kaaga soo baxayeen mar walba waa in sida la soconaa marka waxa weeyaan toontu waa laga yaabaa inay ku caawiso waa tijaabin karaysaa ma xuma ama iyadoo fresh ah ayaad intaad kala goyso ayaad meeshii ku xoqaysaa ama muxuu ahaydeenay waa tumaysaa waa inaad gargaraacdaa oo kimikadeedu ma aragtay ay isku dhacdaa dabadeetana haddii aad tunto oo kale meesha iyadoo fresh aad mariso waan jecelahay waxaanaan jecel iyadoo fresh inaad isticmaashid haddii aad doonaysay haddii aad soo iibsatay mid already go-an ama ridqan taas oo kale kugulama taliyeen waxaan ku odhan lahaa please just make sure oo wax fudud guriga inoo yaala markaad qadada karinaysid dalka easy baa looga hela halkan anaga way noo taallaa dhowr madax baa la iska soo iibsadaa mar walba aan dhaadhacno oonu u dhaadhacno grocery iyo shopping waad isticmaali karaysaa ur bay yara leedahay yes urteedu way yara culus tahay laakiin wax laga maydhan karaayo laakiin faa'iidadeeda ka fakar وانا واحد مرسان كريسان مركا اتمها نفقيني سيدو كله long hair vita oil استعمالي سيدو انت سبونسر كرينسي فيديو غني ما انت اوكي muxuu ahaydeenay marka atimahaga nafaqaynaysid waad marin karaysaa toonta waad ku xoqo karaysaa meesha dhibaatada ka haysato hadii timuhu ka khafifeen xagga hore oo aad doonaysid natural onion ama basasha inaad isticmaashid oo kale waad yara shiidi karaysaa laakiin se make sure inaad hadhow si fiican uga wada maydhid make sure inaad traces ama timihii yani dadka qaarkood baa sensitive scalp leh anigoo kale maqaarkaygu waa sensitive scalpkaygu waa sensitive oo waxa weeye waxyaabo badan baa ay dhibayaan so make sure inaanad haddii ay maaragtay madaxu ku ololo oo kale aanad ku celcelinin kala yara fogfogee mararka aad isticmaashid ama ku koob kaliyaata waxaan naturalkaad isticmaalay sida de powerka leh sida basasha iyo toonta iyo waxaasi meelaha damage-ka iyo dhibaatada kaa gaarsiisan yihiin okay kaliyaata taasaan kaga gudbaynaa toonta let me see beedka waa inagii ka hadalnay imika hablo badan oon garanaynin baa jira laakiinse definitely ukun baan madaxa maraya wax walba waan maraya waxba ima hagaagayaan timahaygu waan maqlay in fara badan ukunta haddii aanad casaanka kaliya isticmaalaynin cadaanka timaha way kaa jajabinayaan so haddii xataa aad wax fiican samaynaysid oo mask fiican aad timahaaga u samaysid oo aad ku dartid beedka xabka cad qalaylkii markaasi hore ugama ba'aya timihii marka wax walba aad madaxaaga marisaa sidaan horeba u sheegay waxa weeye wax timahaaga ku habboon wax adiga ku gaara wax adiga ku anfacay inay noqdaan marka beedka cadaankiisa haddaad rabto timaha inaad nafaqaysid oo ay qoyaan oo qurux bataan oo de ay soo noqdaan oo qallafaad iyo qalaylka badan uu ka bo'o beedka cadaankiisa kuma anfacayo jabi kala bax beedka laba midho beeda casaankooda halkan dhigo ku qaso saliidaada caadiga ah oo saliidaha ugu jecel waliba waxa weeye naarajiinta tuur naarajiintu saliid hagaagsan maaha am sorry asxaabtayda businessyada leh saliid naarajiinta haya naarajiintu maaha saliid timaha u fiican marka qofka waliba timihiisu aad u qalalan yihiin qof kasta ma qofka timihiisu aad u qalalan yihiin uma fiicna saliid naarajiinta waa saliid laga shiilay caanihii coconutka ama qumbaha so definitely waxaan anigu u arkaa inay tahay saliid nafaqadeedu aad u hooseyso oo aan timaha qalalan anfacaynin
de haddii timahaaga ayna qalalnayna in yaro dhaashiyo dhalaala waa okay way aniga xaggayga okay laakiin haddii aynu ka warwarayno hagaajinta timaha iyo soo celinta muxuu ahaydeene soo celinta ma aragtay nafaqadoodii iyo saliidood waa timuhu saliid bay leeyihiin timuhu haddaanay saliidooda naturalka hadday yaraato dee way jabayaan way qalalayaan marka looma baahan marka saliidda keliyan ku odhan lahaa haddaad beedka casaankiisa marsanaysid olive oil ha ahaato muxuu ahaydeene avocado oil is also good laakiin you can make your own avocado so avocadihii saliidda avocado oilku waa very expensive waana saliid ma aragtay haddii suuqa xitaa la dhigo waan arkay qaar badan waxay ku daraan canola oil or regular olive oil bay ku dhaluud gareeyaan in yar unba ah ingredientka ku jirta in yar unba ah real avocado oil waa very expensive because 4 midho avocado waxaa lanaga siiyaa ilaa between $3 ilaa $4 xabadda avocado raqiis maaha markaad soo iibsanaysid dhalo dheer oo lagu leeyahay avocado oil ogo maskaxdaada la kaasho 100% is not 100% pure pure dhalo yar bay noqonaysaa oo dhowr dhibcood oo kaliya aad ku masaajeynaysid scalp marka waxaan ku odhan lahaa saliid kaliya waxa ka badan waxa ka fiican saliida fara badan soo dalbo long hair vita oil-kaaga dadba saliidooda nafaqa loo qabo lagu meerayo de ma aragtay timaha wixii loogu talagalo dhan ka caawinaya rag iyo dumarna aad marsan karaysaa marka beedka casaankiisa saliid nafaqaynaysa madaxaaga ku qas mari bacgeli ku nafaqay ku huuri ku joog saacad at least half an hour ugu yaraan saacad barkeed ku joog dabadeetana ka maydh timaha shaambooga iyo conditionerka aad ku samaynaysaana ha ahaadaan qaar timahaaga ma aragtay loogu talagalay qof kastiba timo gaara buu leeyahay make sure in ma aragtay wax waliba ay noqdaan wax isla wada hagaagsan oo ma aragtay adiga ku anfacayo loogu talagalay naftaada let me see if I can remember su'aal afraad oo in badan soo noqonaysa iyadana ha inan baa igu tiri walaalo waqti badan ma haye wiigi hal mar feeri karaya timahayga wiigi hal mar ma shalayn karaa igu tiri waxaan ku iri walaalo wiigi hal mar waad shalayn karaysaa halka mar way dhaantaa labadii wiig inaad hal mar shalayso taa macnaheedu waxa weeye timuhu haddaad rabtid inay baxaan ama dhibaata kaa haysato waa inaad feedhaa maalin kasta maalin walba inaad feedhaa haddii aanad karaynin labadii maalmoodba mar haddii aanad karaynin saddexdii maalmoodba mar madaxani waa inaad furfurtaa garfeedhu waxa ay u samaysaa timaha massage daldaloolada timahaaga oo ah beerta timahaaga ka baxayeen qolof ayaa korta sida wejiga aynu qolofta ka qaadayna maalin kasta makeup baynu marinaynaa waynu meeraynaa waynu hagaajinaynaa madaxii haddii inta la huuriyo la xidho oo ma aragtay uumi ku baxo oo dhibaato adduun u timaado stresskana madaxaaga waa mashiinkaaga waa maskaxdaadii hawlo culus buu sidaa u wadaa qofka bini aadmiga ma garanaysaa so waxa weeyaan maaha keliyaata in ma aragtay aynu ka warwarno timaha wax laga wahsanayo ay noqdaan kuwa ugu dambeeya maaragtay laga fikiro waxa weeye waa inay noqdaan kuwa ugu horeeya ee aad ku fikirto maalin kasta sida cadaygaas afkaasi haddaanad cadiin albaabka kama baxaysid make sure timahaaga inay noqdaan iyagana wax aad tidhaahdid okay haddii aanan timahani hagaajinin way isku dhegdhegayaan dhibaato badan baa igala imanaysa way iga googo-ayaan way iga khafiifayaan de way daalayaan way tabcaanayaan magaranaysaa madaxii daldalooladii baa xidhmaaya muxuu ahaydana qurux baad sheegtay intii reeda kugu taalla khafiifaysa way jajabayaan marka damageka badankiisa waa wax simple in wax ka qaban karayna laakiinse waqti baa loo baahan yahay in la geliyo maadaama hadda igu xidhan tihiin insha Allah qaar badan oo kale su'aalahan idinka soo jawaabi doona haddii aanan su'aashaadi ka jawaabin oo aan hubo in ma aragtay su'aaluhu inta ka badan yihiin halkan igu dhaaf mar kale ayaan ku dari doonaa groupka dambe su'aalaha timaha hagaajintooda iyo qurxintooda kaga jawaabi doono timuhu waxay ku xidhan yihiin naftaada waa maadaama madaxaa ka soo baxayaan oo beer tii madaxaaga yihiin ka soo baxaysay beerti waa in la qodo waa in la feero waa in la hagaajiyo taasina ma aragtay waqti yar bay qaadan haddii xitaa timahaagu rablaysan yihiin oo kale oo aanad haleelaynin inaad ma aragtay labadii cashaba mar furto saddexdii casho mar aad furfuri karayso laba goor aad maydhid timahaaga muxuu ahaydeena waxa ugu muhiimsan in marka masarka aad iska dhigtid ee la yidhisid madaxaaga inaad massage ku samaysid ya madaxaaga waa inaad massageysaa waa inaad ku riixdaa
haddii uu madaxaasi ma aragtay damage badan kaa gaadhay waxaad dareemaysaa damqasho inuu ku yara bararay oo kale taasi stimulationka massageka ayaa ka saaraya gabadh baa igu tiri su-aashaan xusuusta imika haa intaanan iloobin masaajadaas aan ku xasuusta inan baa igu tiri anigu waqti ma hayo oo marka aan maydhanayo ayaan feedhaa timahayga oo baadka aanan ku jiro iyagoo qoyan ayaan timahayga feedhaa waad feedhi karaysaa hadday tima gaagaaban yihiin oo dee nafaqaysan laakiin timuhu marka aad ma aragtay baadka ku jirto waxa weeyaan waa very vulnerable way kaa go'i karaan marka ujeedadu waxa weeyaan marka aad soo baxdo inaad meel fadhiisatid oo timaha xagga hoose kaga soo bilowdid garfeedha waaweyn ku kala bixisid dabadeetana aad kor u socotid oo wada feedhid dadna hadhow toole madaxa guntiisa si fiican umagu masaajisid garfeedhood ugu xoqdidooda maaragtay u feedhid marka haddaad baadka ku jirto oo kale oo timihii ay iska googo-ayana jajabayaan oo aad garfeed degdeg gaf ku siisid taasoo kale waxa weeye iyana damage bay gaadhsiinaysa marka timaha marnaba ma jeceli anigu in qofna marka uu baadka ku jiro uu feedho markaa maya ha sameynina sidaa ayaan idin odhan lahaa xagga cuntada inan baa ila soo xidhiidhayo reer Canada ah oo actually alaabadeeda u diray waxay ugu tiri walaalo wax kasta oo ka waraystay markaan qofka waraysanaayo alaabooyin aan u dirayo hadday saliida tahay wax kaleba mar walba taariikhdan jecelahay qofka noloshiisa siday tahay iyo hawlihiisa siduu u qabsaday iyo bal waxa meesha wax iska bedeleen because anigu shaqadaydu maaha inaan qof walba ku idhaahdo sidaas un yeelno waxa weeye qof waliba isaga timihiisa garanayo ka mas'uula meesha uu ka khaldamay un baan anigu jeclayn aan u saxo haddaana taariikhda qofka ku noqonin iyo shaqadiisa iyo hawl maalmeedkiisa iyo nasashadiisa iyo shaqada uu galay iyo inuu umulay in xaaladda caafimaadkiisu isbedeshay iyo ma ogaan kari sida run ahaantii so inaanti markaan iswaraysanay arrimaha badan iska waraysanay waxa ay ii sheegtay inaanay ahayn dadka wax cunaa inay laba shaqo ka shaqeyso inay hooyo tahay maasha Allah caruur badan haysata Allah u daayay laakiin ay tahay qof daalan oo gabigeeduba aan seexanin more than 5 hours 5 saacadood ka badan maba haleesho maba seexataba anigi waan isku naxay way ii sheegtay abateedkeeduna aad buu xun yahay markaasaan ku yiri wait a minute waa inaynu horta ka fakarnaa bal horta sidaad nasasho u heli lahayd iyo sidaad ma aragtay isku qasb lahayd xitaa cunto nafaqo leh ya aduu inantii waxaan la tacaalaba waxaan isla wadanaba sida u qasbay xitaa abateed meel waxaan ku yiri waa inaad cunto diyaarsataa waa inaad cunto qaadataa waa inaad 3 goor maalintii wax cuntaa oo aad qaadataa waa inaad 2 goor snack cuntaa ya oo aad ma aragtay isku qasabtaa waa naftani waxa weeyaan haddaad empty ku socotid taangigaagii iyo maran gaarigaas miyuu soconayaa maya de waxa weeye jirkii nafaqo ma gelayso waxba ma gelayso timahan dusha waxa weeye waa aesthetic waxa weeye waa bilicdii guud de nafaqadiina ma aragtay timaha sameeynaysa kumaba haysid moogta so waxaan ku yiri waan ku sharaxo waan ka dhaadhiciyo waxaan ku yiri walaalo waa inaad wax cuntaa number 1 wixii kale u baahan tahay wixii kale lagu kabayo wixii timahan ku hagaajinaynaba de hawshada waynu galaynaa laakiin waa inaad ogaataa haddaad seexan weyd in jirkaagii ay ka go'an tahay ma garanaysaa more calorie u baahan yahay more calorie the more vitamin jirkaagii u baahan yahay oo ah ma aragtay 20 saacadood ee dhadhoweed maalintii dhan shaqaynaysa caruurta diyaarin maxay cuntadooda kari shaqadan tag ka imo haddana gurigii tag wax kale yiraahdo haddana shaqadii kale tag ku soo qabo haddana soo noq haddana gurigii kale cashadii ciyaalka diyaar yani you can imagine maasha Allah caruurtan caruur wanaagsan weeyaan laakiin iyadiiba abateedkeedii aanu xitaa jooginba ilaa qof baaba intuu meel fadhiistay yiraahdo koob caana abaan cabay okay oo lama yaabo hablaha ma aragtay igu yiraahda milgoy waa iska naaxayo meel baan iska fadhiistaa markaan shaqada adduunka oo dhan dhameeyay ciyaalka aan seexiyo wallahi cashadeedaan iska soo gurta halkaas iska fadhiista koob shaahan cabaa I don't care wixii faad igu noqonayo waan anigoo happy baan seexdaa de qoftaas oo anigu ku raacsan oo maadaama maanta dhan urdaysay xilli calorie laga warwaro maba joogtid laakiin inantan oo kale oo abateedkeeduna xun yahay you can only imagine enough vitamins jirkeedii aanu haynin uu ku socdaba
jirkeedii meelo kale ka xadaya wuxuu ka xadaya lafahaagii urku jirtaadii stress related ma garanaysaa damages ayaa kugu dhici karaya maqaarkaaga isbedelaytime iska ilow cidiya iska ilow ooladaad xida cidiyahaasaa liiliid ku yeelanaya indhahaasaan casaanba ka baxaynin muxuu ahaydeene dibna ku dildilaaca yani ma garanaysaa gebigaaga waad isbedelaysaa maba noqonaysidba qof ma aragtay de qof yani dirqiya allah ku socdaa noqonaysa markaa nafaqada jirku waa number 1 inaad horta wax cunto oo aad nasatod seexatod stresskana iska ilaaliso stressku waa ka number 1 hablaha timaha ka gooya intaasaan kusoo koobayaa wixii su-aalaad qabto muxuu ahayd videoga ma raba inaan dheereeyo waxaan malaynayaa 25 daqiiqada inuu gaadhay 15 baana rabay inaan ka dhigo insha allah ilaahay idinku anfaco like share and subscribe and إن شاء الله نشرل كانوا واحد دوري يعني وقلت لك على إنه النقطة مد قرحتني نفتنا إنه وجود ذا إنه أنا قلنا عدي أنا قاعد كريني فرين تري أي قاعد ويا هبلا بدن أي دبان وحول بقى أنا وحبك كتيرنا يوتيوب على بس وبوحية مركا وحين نقطة إن ما عرفتي وحنان داوضي ملقي محي كلها هيدا اسمه عرفتي لإيه صوت درايو هل كان إن النقطة هدي عاد حتى ترى أوكي موضوع عنه وقسمه إنا بقى soo sheegtay igu tiri walaal mawduuca ma nooga sameeysid video yaro timaha khuseeya ama ma nooga warintid arrinkaasi waan idin sheegay so definitely this is what I want to do maraba inaan anigu inta video soo sameeyo aan iraahdo ninkaygii baa i dilay dhibaatadana i gaadhay oo ma aragtay subscribe isaaran no waxa weeye qofkii ilaahay dhibaato ku keenay anigu waxaan qabaa ma aragtay waa halkeeda laakiin ujeedadan channelkan u sameeyay maaha kaliya in ma aragtay uu noqdo meel dhibaatada aynu isku weydaarsano inuu noqdo mid macluumaad sax wax ku ool inoo noqdo oo ina anfaca insha Allah idinkana saanu ogaado inaad daawato inaad ka faa'iideysatay inaad ma aragtay kamid noqonayso daawadayaasheeda oo aan doonay inaan live halkan toos uga soo galo anigoo live ku jirana su'aalihiina aan idinka jawaabi doono wixii aad ku xuseeyo aan dib u sugaynin marka you have to subscribe inshallah thank you so much we'll see you soon bye ina soo dira su'aalihiina rag iyo dumarba I hope you like this little makeup I have the longest lashes like Marian Ahmed Imant okay I don't know if you like this style of lashes لكن أنا قوي يقول يردادي فالميك اب كيك واحد كقبت الصوت شيك تما هيجينا definitely كيرلي ويان أو دمانتن هجاتشين واحد كسر يوم باجوديجي وحكي لنا كمان سمين أدنى إن شاء الله يا إن شاء الله أنا ولا بقروح بدل ما بقروح ده الدور اللي كده ده شو وح أنفعي كهلي دونتا شغال كيجا باي